أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كيني طهارة قيبتي شنات هدي ربي إدمي إن شاء الله أنا أقرن دونه. فضلا سبسكرايب صار لايك شير قري إن شاء الله. waxaa sidoo kale la ogsoon yahay in dabeecadii nebiga sallallahu calayhi wasallam ay ka mid ahayd in markii la kala dooransiiyo laba arrimood uu qaadan jiray tan labada dabacsan haddii aanay dembi ahayn. haddii ay dembi tahay wuxuu ahaa kan ugu durugsanaan badan xeelka ay aragta haweenta uurka leh. sida badan dhiigga caadada xeelka waa joogsadaa marka ay haweene uur qaado. imaam axmed allah u naxariistee wuxuu yiri dumarku waxay ku ogaan karaan inay uur leeyihiin inuu ka joogsado dhiigga xeelka haddii ay haweentu uurka leh aragto dhiig waxyar ka hor dhalmada 2 ama 3 maalmood ee la socoto fool. markaas waa dhiig nifaas ah dhiigga dhalmada. haddiise la arko dhiigga dhalmadeeda ka hor ama waxyar ka hor dhalmada ha yeeshee ayna la socon fool markaas ma ahan nifaas dhiig dhalmo ah. xaaladdu marka ay sidan tahay su-aasha isweydiinta leh waa in la arko dhiigga xeydka ahaan oo sidaa uu ku qaadanayo dhammaan axkaamta xeelka mise may. waxaa jira khilaaf xagga culimada dhexdooda ah oo arrinkan la xiriira qowlka saxiixa ah hase ahaatee waxaa weeye nooca dhiigga inuu yahay dhiig xeyd ah. waxaa arrintan aasaas u ah qodobka sharciga ah ee leh dhiigga haweenka ku dhaca waa dhiigga caado ah xeel marba haddii aanay jirin sabab keenaysa inaan laga soo qaadin dhiigga caado ah xeelka. lama hayo wax ku yaala kitaabka Allah iyo sunnada nebiga sallallahu calayhi wasallam oo caddeynaya in haweenta uurka leh uusan ku dhicin dhiig caada xeelka. qowlkan waxaa qaba imaam maalik, imaam shaafici waana sida uu doortay oo doorbiday diin ahaan sheekhul islaam ibnu taymiyah. waxaana la soo wariyay in imaam axmed isna qaatay qowlkan waa dambe. sidaas awgeed dhammaan qodobada sharciga ee la xiriira dhiigga caadada xeelka baa lagu qaadayaa xeedka ee hesho haweene uur leh marka laga reebo 2 arrimood. casharkeenii qaybtii shanaad intaas ha inoo joogto insha allah. fadlan haddii aad dhageysatid subscribe saar like share garey insha allah.